السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن داوديال halkani waa xarunta dhexe ee muuqbaahiyaha qaranka SNTV kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadli doono xaaladda magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo halkaasi oo xalay ilaa saakii uu ka socday dagaal dhex maray ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan iyo sidoo kale maleeshiyaad ay Kenya barataarayso oo ka soo duulay xadka dalkeenu la leeyahay dalkaasi. barnaamijkan waxaynu ku jeexjeexi doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Balad Xaawo sida ay hadda tahay iyo sidoo kale qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi oo ku jiro jabka gaaray maleeshiyaadka soo duulay. sidoo kale waxaan eegi doonaa qasaaraha hadii uu jiro soo gaaray dadka rayidka ah. waxaan eegi doonaa sidoo kale si guud go'aanka dawladda Soomaaliya ama mowqifka dawladdu ay go'aankaasi ka qaadatay iyo waxa ka dhalan kara duulaankaasi qaawan ee Kenya ay ku soo qaaday magaaladaasi dalka ka tirsan. barnaamijka martida igala qayb galaysa waxaa ka mid ah wariyaheena gobolka Gedo Cumar Ciidruus oo nasiib doona warbixintii u dambeysay ee xaaladda magaalada iyo sida ay tahay iyo qaabkii wax u dhaceen. waxaa stuudiyaha ugu la sugan gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo Aadan oo xirsi sidoo kalena wasiir ka soo noqday dawlad goboleedka Jubbaland laba wasaaradood wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda cadaaladda. waxaa qaybaha dambe ee barnaamijkan ugu soo biiri doona xildhibaano deegaan doorashadoodu tahay gobolkaasi oo ka warrami doona iyaguna sida xaaladdu hadda ay tahay iyo bulshada dhibaatada ay ku wajahayeen bilihii la soo dhaafay oo ay sababatay maleeshiyaadka ay Kenya halkaasi ku diyaarisay. marka hore waxaan ku hormarayaa xaaladda degmada Balad Xaawo iyo sida ay xilligan tahay. waxaa qadka taleefanka toos ugu jira wariyaheena gobolkaasi Cumar Ciidruus. Cumar soo dhawow balna si warbixintii u dambeysay iyo sida hadda xaaladdu tahay. walaashan tahay sida cid walba u tahay xalay ilaa saaka waxaa magaalada ka socday Balad Xaawo ee gobolka Gedo ee u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka qaybahooda kala duwan iyo sidoo kale maleeshiyaad Kenya maalmihii ugu dambeeyay ama muddooyinkii ugu dambeeyay ku aroorinaysay gudaha Kenya. dagaalkaas waxa uu sababay qasaarooyin soo gaaray goobo ganacsi iyo sidoo kale bulshada qayb ka mid ah. marka la eego gudoomiyaha gobolka Gedo ee dhawaan la magacaabay waxa uu warbaahinta u sheegay in gacanta lagu hayo 250 maxaabiis kuwa ka badan sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo iyo maaragtay dhimashooyin isha qadanayeen oo markaasi magaalada looga tagay. waxaa sidoo kale jira gaadiid sida gudoomiyaha gobolka uu warbaahinta ku sheegay looga qabtay dagaalka muddadii uu socday. Cumar maasan tahay waa ku weydiin doonaa qasaaraha ka dhashay iyo sidoo kale jabka maleeshiyaadka gaaray. waxaan rabaa hadda inaan ogaado xaaladda magaaladu xilligan sida ay tahay cidda ku sugan iyo meelaha ay kala joogaan ciidamadii dagaalamay. walaashan tahay xaaladda magaalada way degan tahay saacadihii lasoo dhaafay waxaana si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan. ciidamadii ka soo talabay xadbeenaadka Soomaaliya iyo Kenya waxay dib ugu laabteen halkii talisyadooda ee gudaha Kenya. hadda si guud ahaan waxaa magaalada gacanta ku haya ciidamada dawladda magaaladana way degan tahay. Cumar ma haddaan u laabano marka qasaaraha ka dhashay dagaalka oo jabkaas gaaray maleeshiyaadka soo duulay bal warbixin naga sii qasaare intee leeg ayaa gaaray maleeshiyaadka. walaashan tahay sida warbaahinta loo soo bandhigay gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Gareedna uu sheegay 250 in ka badan oo maxaabiista ayaa warbaahinta loo soo bandhigay oo maleeshiyaadkii xalay weerarka soo qaaday. sidoo kale waxaa jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamadii xalay weerarka soo qaaday oo ay uga tageen maaragtay gudaha magaalada. waxaa sidoo kale jiro gaadiid dagaal oo loo qabtay muddadii uu dagaalka socday. weli waxaa socda tirinta iyo sidoo kale farxadka maleeshiyaadka xalay weerarka soo qaaday. ilaanta ammaanka iyo sidoo kale maamulka gobolka waxay sheegeen in weli ay socdaan xaqiijinta qasaaraha rasmiga walow la soo bandhigay intii ugu horeysay. magaalada Balad Xaawo waa magaalo weyn dad shacab ayaa ku nool. Cumar ka waran haddii aad xiriir la sameysay goobaha caafimaadka ma jira qasaare soo gaaray dadka shacabka ah ama mas'uuliyiinta dawladdu ma sheegeen wax qasaaraha oo ka dhashay oo shacabka soo gaaray. walaashan tahay inta ugu badan hoobiyaal laga soo tuuray dhanka gudaha Kenya waxay qasaare gaarsiiyeen dad shacab ah ilaa dhowr 10 qof ah. waxaa jira qustan oo ka koobnaa ilaa 8 ruux oo jiraan aabihii hooyadii labadii way ku dhinteen biyahaas. qasaarooyinka marka ugu badan goobaha caafimaadka iyo bulshada intiisa kaleba la arkayo waxay tahay bulshada rayidka qasaarooyin kala duwan ay soo gaareen. qoyskaas uu sheegay dhammaan inta badan ay u dhinteen madfacaas
kuwii soo harayna waxay ku nool xaalad degdeg ah oo waxaa meel walba ku jira maaragtay tirada uu u geystay FSA. cumar maleeshiyaadkii soo duulay iyaga war ma laga hayaa meel ay ku dambeeyeen? waasan tahay kasoo tallaabeen xuduudbeeneedka Soomaaliya iyo Kenya haddana waxay ku sugan yihiin iskooda ahaa ee gudaha Kenya mana jiraan ay xataa magaalada jooga oo wax dib ugu laabteen goobihii ay markii hore soo duulay oo Kenya gudaheeda ilaa 10 kilomitir ayay galaasida warkii sheegayaan. warbaahinta madaxa bannaan iyo guud ahaan warbaahinta wararka ay kasoo tabinayso gobolka waxaa ka mid ah dagaalka inay ka qayb galeen dad shacab ah oo ka dhiidhiyey dagaalkaasi, bal arrintaasi iyadana maxaan ka haynaa? waasan tahay xaafadaha ugu badan magaalada xalay maleeshiyaadka ay duulaan ka soo qaadeen waxaa degnaa dad rayid ah oo waaga xuduudda ciidamadana ay joogeen. marka inta badan xalay inta dagaalku socday masaaka shacabka Soomaaliyeed qayb ay ka hayeen sidii maaragtay isu dhaafin lahaa maleeshiyaadkan Kenya ay galaasha ka riixayso ee doonayeen maaragtay amniga iyo xasiloonida dalka gaar ahaan deegaankaas lagu qalqalgeliyo. marka qayb ayay ka hayeen kaalin lixaadna way ka qaateen. ugu dambeyn cumar, dagaalka ka dhacay Beled Xaawo magaalada idilow ka dhacay guud ahaan mase qaybo kooban ama qaybo ka mid ah magaalada ayuu ciidamadu isku fara saareen? halkee dagaalku ka dhacay? waasan tahay inta ugu badan dagaalka waxa uu xalay ilaa saakaba ka dhacayay qaybta xuduud xigta magaalada inteeda kale way nabdooneen oo wax dagaal kama jirin, laakiin aaga xuduudda oo maaragtay ciidamada ku kala sugan yihiin halkaas ma soo dhaafin. marka laga reebo aaga shirkadda Hormuud oo iyadana ku degan bakaaliga ku haysa kasta xuduudda oo ay markii dambe soo gaareen markii dambe ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen naagaasna si maaragtay buuxda ay ciidamada gacanta ugu dhacaan oo guud ahaan magaalada loo wareegeen ciidamada. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cumar Cayduruus, wariyaheena gobolka Gedo ayuu kaasi ahaa daawadayaal oo si toos ah isagoo gobolkaasi ku sugan nooga waramayay dagaalka saaka ka dhacay magaalada Beled Xaawo. sida uu sheegana hadda waxaa si buuxda gacanta ugu haya magaaladaasi ciidamada qaranka gaar ahaan ciidanka xoogga dalka oo halkaasi dagaalka adag kula galay maleeshiyaadka soo duulay. intaan u gudbin wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cusmaan Abuukar Dube oo ka hadlay dhacdadan iyo mowqifka dawladdu waxa ay ka tiraahday, waxaa stuudiyaha igula sugan gudoomiyihii hore ee gobolkaasi aadan oo xirsi laba wasaaradood oo ka mid ah wasaaradaha Jubbalandna wasiir ka soo noqday. gudoomiye, bal adigu maxaad kala socotay xaaladda gobolka gaar ahaan maanta iyo dagaalka Beled Xaawo ka dhacay? bismillaahir rahmaanir rahiim. horta aan fursaddan uga faa'iidaystay inaan u tacsiyeeyo dadkii shacabka ahaa ee Soomaaliyeed ee magaalada Beled Xaawo iyo tan Madheerba deganaa ee lagu barakiciyey, korkooda lagu dagaalamay, qaarkood la laayay. laba qoys baan ognahay oo qaarna ay 5 caruur ka dhinteen, qaarna 4 iyo hooyadii ay dhinteen magaalada Beled Xaawo. Madheerana in laga barakacayo waa la hubaa. horta aan u tacsiyeeyo dadkaas arrin aysan go'aankeeda wax ku lahayn lagu barakicinayo markii lixaad sanadkiina soo dhaafay iyo midkan horeyna loo dhex fadhiyey oo loo leynayay oo xuduudkaas lagula dirirayay in soo durjiyo iyo iyaguna ay ka dagaalamayeen inay waxaan ku idhaahdaa ay xuduudkooda ilaashadaan iyadoo ay dowladdiiba jirto ay dadkaa shacabka oo Beled Xaawo dad weligood u tababaran bay ahaayeen inay xuduudka ilaaliyaan. intaa kasoo waxaan ognahay in maleeshiyada ay Kenya soo tababartay qaarna laga soo daabulay gobolka Jubbada Hoose degmooyin ka mid ah, qaarna Kenya dhexdeeda ummadda Soomaaliyeed ee degan qaar ka mid ah laga soo dhex daabulay oo aanba arki doonaba hadda muuqan doona hadduu ilaahay maayo inay xalaq saq dhexe ay soo galeen dagaal ay ku soo qaadeen. dagaalkaasna wuxuu lahaa laba waji. dagaal waxay ka soo qaadeen dhinaca shishe, dagaalna waxay magaalada ku galeen waxay qabsadeen xarunta shirkadda Hormuud oo waan ka hadli doonaa ee qayb ka ah la dagaalanka dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed. shirkadda Hormuud waxaad ogtiin inay weeraraan oo markasta duqeeyaan maxaa la yiraahdaa siinkeeda iyo meelaha ay xarumaheeda inay duqeeyaan ku faafsan maxaa la yiraahdaa gobolka Gedo iyo Jubbada Hooseba. markii ay fursad u heleen inay Beled Xaawo soo galaan, dhismaha kaliya ee ay galeen
iyagoo ku talagalsan inay burburiyaan oo dhibaato ka geystaan waxay ahayd shirkadda hormuud oo dabcan dee hanti soomaaliyeed ah aadna garan kartid oo shirkado kale la raba in loo baneeyo xuduudkan maaragtay si ay u imaadaan oo ay maaragtay uga ganacsadaan dagaalkii marka waxaa la sheegayaa dadka aagga jooga ay soo warinayaan markii maleeshiyadu soo gashay in ay ciidanka kenyana soo garaacayeen magaalada oo dadka inta badan dadka dhintay xabadi aysan dilin ee ay dileen madaafiicdii duqaynta ahaa oo hoobiyaha u badnaa sida ay dadka militariga yaqaan sheegeen oo guryaha kor uga soo dhacay inay laayeen waa wax aad looga xumaado way dhammaatay baa hadda la yidhi waad maqlaysay wariyaha aniguna xog kalaan hayaa oo inay maxaan ku rahdaa dagaalkii uu dhammaaday magaaladu ay degan tahay waxse jiro oo xusuusin mudan tirada ciidanka isdhiibay wuxuu ku tusayaa ciidankaasi inaanu dagaal rabin oo si khasab ah ama lagu soo khiyaanay lagu keenay meesha ay joogeen 200 iyo xoogaa isdhiibtay micnaheeda waxa weeye ciidankaasi inaysan dadka wada Soomaaliyeed iyo calankooda iyo qarankooda iyo magaalooyinkooda inaysan xabado ku ridin inay ku talagaleen bay ogtahay warkood ayaa hadlay goor dhawaan eegi doonaa mar dhawaan eegi doonaa xaaladda magaalada dagaalku xilligii uu socday sida ay ahayd iyo sidoo kale dareenka iyo aragtida raggaasi Soomaaliyeed ee dagaalka lagu qabtay waxa ay ka dhaheen waxaan rabaa markan inaan u talaabo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cusmaan Abuukar Dube ayaa warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda warfaafinta waxa uu ka hadlay dagaalkaasi iyo sidoo kale duulaanka dawladda Kenya ay ku soo qaaday magaalada Balad Xaawo waxa uu sheegay in arintaasi ay ka dhalan karto cawaaqib aan la mahdin si guud sida xaaladdu ay tahay iyo guulaha ciidanku gaarin iyo wasiirku si fiican u faahfaahiyay بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bisha January ay tahay 25 waxaa halkan aan isugu kin yeeray haddaad tihiin bahda warbaahinta guud ahaan warbaahinta qaranka warbaahinta gaarka loo leeyahay dhammaantiin inaan idinla wadaagno macluumaad ku saabsan duulaankii xalayto lagu soo qaaday dalkeena xalayto saqdii dhexe ciidamo ka tirsan dawladda Kenya Defence Force iyo jabhaddii fallaagada ahayd ee baryahanba ay hoosta ku haysatay ee ay taakulaynaysay ee ay quudinaysay oo wada socda ayaa xuduudda ka soo tallaabay bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Balad Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Balad Xaawo iyo gobolka Gedo taas oo ku noqonaysa dhabar jab iyo qaran jab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaaraynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga adkaaday oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda waan jeclaa inaan halkan ku soo bandhigno jabka gaaray iyo maxaabiista la qabtay oo ku dhow 100 maxbuus oo dagaal la qabtay laakiin wiilasha la soo adeejiyo wiilashayadii ee qoryaha loo soo dhiibay aan dhacaynin waliba ilaa dii qori dhacayee oo ah wiilashayadii dhaqanka Soomaaliyeed diinta islaamka xeerarka caalamiga gaar ahaan Geneva Convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka intuba waxay noo diidayaan inaanu halkan ku qaybino sawirro laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhaddii fallaagada ahayd 100 in ku dhow khasaaro nafeedna uu soo gaaray sida loo jabiyay baan rabaa in yar
inaan idinka brief gareeyo ama idinka tilmaamo. kow horta xoogga dalka Soomaaliyeed, Somali National Army, ciidamadeenu way diyaarsanaayeen mar walba waxay u diyaarsanaayeen weerar kasta oo kaga yimaada jiha kasta. diyaargarowgaasi wuxuu baajiyey ku talagal iyo qorshe ay ka wada shaqaynayeen cadowga iyo cadow kalkaalku muddo dheer. waxaa kaloo nimanka jabiyey shacabka Soomaaliyeed oo naf iyo maal isla berber taagay ciidankooda xoogga dalka oo u hiiliyey cidda shacabku raaco ayaan baana bar walba guusha leh. tan saddexaad ee adhaxda ka jabisay nimanka waxay ahayd fallaagada wiilasha la soo qalday ee lagu rabay in lagu ababiyo mucaaradnimada iyo qarandiidnimada oo aan niyad u haynin waxa loo dhigayo iyo waxa loo sheegayo iyo waxa lagu dagaalgelinayo. waa ogeydeen maalmahanba iyo usbuucyadanba way se soo dhiibayeen saraakiishooda iyo wiilashuba way iskaga imanayeen. waxaaba laga yaabaa qola islahayd un mar una magaalada tagteen inay iyaguna u haysteen ciidan u dagaalamaya. sidii ayay wiilashii isu soo dhiibeen. morali may haynin ay ku dagaalamaan. moral la'aantaasina iyo niyad la'aantaasina waxay keentay in ay jabaan oo ciidanka aan niyadda haynin ma guulaysto. kumay qanacsanayn dalkaaga ku duul, hooyadaa ku duul, walaashaa ku duul, gurigaaga ku duul, kumay qanacsanayn. sababtaana way u jabeen. khasaare ba'an ayaa loo geystay fallaagada sidaan hore u sheegay. waana ciidan badan baa laga qabtay. iyagu khasaare noocay geysteen. sidii caadada u ahayd marka qofka fallaagaahi uu ogyahay inaanu ciidanka la dagaalami karin, waxay abbaareen shacabkii iyo ganacsigii. waxay adeegsadeen madaafiic iyo hoobiyeyaal. waa naqaanaa fallaago ma haysato madaafiic iyo hoobiyeyaal. waxaa caddaana oo ay muujinaysaa in dowladda dabada kaga soo jireen oo ay u soo dhiibeen madaafiicda iyo hoobiyeyaasha ay ku weerareen guryahoodii iyo hooyooyinkoodii iyo walaaladooda. hal qoys oo keliya oo Soomaaliyeed oo reer Balad Xaawo ah oo la garanayo ayaa 5 carruur ah iyo hooyadood lagaga wada dilay. which is a very very sad. aad u qalbi jaba. waan u tacsiideynaya qoyska iyo qoysaska kale ay nimankaasi dhibaateeyeen. waxay kaloo si xun u weerareen goobaha ganacsiga. tusaale ahaan ilaa markii laga adkaaday waxay ku dhuumanayeen oo difaac ka dhigteen dabaqa Hormuud ee Balad Xaawo ee caanka ah. sababta ay Hormuud gabaadka uga dhiganayaan waa maxay? waa barnaamijkii dowladda Kenya ee ahaa ganacsi la dagaalanka, weliba khaasahan shirkadaheena waaweyn ee Hormuud iyo Somton ay in badan kula dagaalamayeen. in Hormuud la burburiyo maaha wax ka yimi caqliga wiilasha. waxay doonayeen in lagu dagaalamo oo ay shirkadu burburto oo aanay shaqaynin ayay doonayeen. waase laga guulaystay. waxaan rabaa inaan baaq u diro nabadiidka. ilaa shalay waxaa ogeydeen oo iyadu dowladduna ay fashilisay hub culus oo fara badan oo la rabay in dalka la soo geliyo sidaanu saakaba warbixinta ku soo saaray. waxaasoo dhammi waxay muujinayaan Soomaaliya is under attack. Soomaaliya in lagu soo duulay ayay muujinaysaa. laakiin ciidamadeenna, shacabkeenna iyo dowladdeennuba waxay heegan u yihiin inay ka hortagaan. waxaan baa ku dirayaa wiilasha la soo qalday inta ka hadhay ee xuduudda dib uga tallowday inay ku soo noqdaan ciiddoodii, calankoodii, dowladdoodii iyo guryahoodii. diidaanna inay fawdo sameeyaan oo ay dalkooda khalkhal geliyaan. waa mahadsantihiin. cusmaan abuukar dube wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya ayuu ahaa oo shirkaasi jaraa'id warbaahinta u qabtay kadib markii ciidamada qaranku ay xaqiijiyeen gacan ku haynta degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. weli umuuraha Balad Xaawo ayaynu ku guda jirnaa. bal haddaynu dib ugu laabanno sida xaaladdu ahayd waqtigii dagaalku socday magaalada iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay, waxaa jirta in ciidamadu ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan ku dhowaad 100 ka mid ah maleeshiyaadkii soo duulay oo qaarkoodna ay isa soo dhiibeen kadib markii ay sheegeen in lagu soo qalday dagaalkan
ayna damiirkooda u diiday inay ka qayb noqdaan duulaan lagu qaadayo dalkooda sida ay hadalka u dhigeen. warbaahinta kala duwan oo halkaasi ka soo warantay waxay soo bandhigeen muuqaalo muujinaya guulaha ciidamada qaranka ee dagaalka qayb galayo ay ka soo hooyeen dagaalkaasi. bal markan aynu wada daawano muuqaal ka waramaya maleeshiyaadkaasi gacanta lagu dhigay iyo wixii ay ka dhaheen dagaalka ay ka qayb galeen. وعسكرتي البارح كنت حسين مرتين عسكرتي حقها أجرتي ها تيدا النهاية يصير إنه ودي مركا أيكو أي دور هذا عن قناي أيك مركا حبيت يقول باللاوين أنا كمش هذا أي ولش عندك سودان يعني فهرنا حبنا ما نريد معاك فرينا ودريسا waxaan fariin u diray yani marka way khaldan yihiin wayna gal darayeen hadday Kenya ay ku xiran yihiin Kenya way khaldan tahay dhalinyarta Soomaaliyeed maxaan ku raayay meesha lagu hayo la khaldaayo dadkoodii iyo dadkoodii Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya federaalka xoogga dalka Soomaaliyeed ha ku soo biiraan waxa kay deegaanka gobolka Gada صح ودك عيل والله كيناتا قرلي كان كنادي قرلي عباس غيرك كان قرلي كان هذا مدبل الى فاحش كاملنا يا مش قصنا فقاس مركه معني waxaan buganta intaan ku arkay isla joognay marka seen bari intaan caalam Jubbaland ay qarnaa intaan caalam Soomaaliya sida laga qarnaa dawladda iyo caalamka Soomaaliya ayaa soo gasheen baytul amaan ayaad joogtaan cid wax idin dhamaysa malahan niyada khayr u sheega burcad idin ma hayso su'aal ma kugu dari karaa sagaal sano ninkaan la shaqeynaya aniga oo isku nafta iyo isku nolosha iyo isku dhiigaan ahayd oo intuu gaari igu soo guray deegaan aqoonin iyo dulkeena deegaankiina aan dadna iyo dalna aan ka garanayn maxay ila tahay laba rag baa tiiri adigu ka jawaab hadda dhex taagan oo kaleeto waa laakiin haddaad ku dhimato maxaad ku dhiman lahayd ehelullah inaan ahay baan sheegi lahaa saakiin haddaan ku dhimato waayo waxaad ku soo duushay anoo jiifo anoo fadhiya salaad subax baan saaka tukaday. waxay ahaayeen qaar ka mid a maleeshiyaadkii lagu qabtay dagaalka beled xaawo maanta ka dhacay sida aad maqasheenna waxa ay sheegeen in ay markaasi u cuntami weysay inay qayb kasii ahaadaan dagaal dadkiisa ama dadkooda iyo dalkooda lagu soo qaaday. goordhow waxaan eegi doonaa xildhibaan ka mid a golaha shacabka oo ka warrami doona dareenkiisa, balse waxaan jeclahay waxaa la ii sheegayaa in haddaba uu ku jiro xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid a golaha shacabka. xildhibaane soo dhowow, maxaad kala socotay xaaladda beled xaawo maanta? mahay arrinta ka dhacday beled xaawo aad iyo aadaan ugu waa dhibaato in dad Soomaaliyeed soo weeraro weliba loo adeegsado iyo wiilashoodii loo adeegsado dembi ayaa ka dhalanaya arrintaas. mas-uuliyaddeedana waxaa qaadaya dadkiisa muxuu ahaa hadda waxaa ku mahadsan ciidamadeena muxuu ahaa qalabka Soomaaliyeed iyo ahaan sida meeshaas soo afjaray, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala naga qaadayo waxaa ugu daran oo ilaahay waa inaa ilaahay hooyo iyo shantii iska jiifa madfac kenyaati uu soo muxuu ay ku dhinteen. arrintaas arrin aad iyo aad murugo loo waaye. ha ogaato in muxuu ahay arrintaas ay tahay oo ahay iyo dembi dadka Soomaaliyeed ka gashay marna aan looga aadi jirin. ha ogaato inay tahay
anadu ay hagaajin doonaan codka xildhibaanka si dadweynaha barnaamijka daawanaya oo ay si nadiifa u maqlaan. waxaan jeclahay inaan stuudiyaha kusoo laabto iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo aadan oo xasan oo aadan oo xirsi oo stuudiyaha la fadhiya. gudoomiye waa ka warhaysay xaaladda gobolka muddana waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiinta xukuma. arrintan dagaalka maanta ka dhacay markaan eegno maxaa ka dhalan kara? horta dagaalkan waxa uu ka dhalan kara dadkii oo sii kala aamin baxa in dib loo heshiiyo oo dowlad loo dhan la wada dhistay ahayd qorshihii lagu socday oo la soo jeediyey. haatan waxa weerartamayana Kenya weeye, waxa ay isticmaalayso sida qoryaha loo isticmaalay oo kale waxay u isticmaalaysaa maleeshiya Soomaaliyeed. waa run khilaaf hoose waa jira, laakiin bini aadanka khilaafkiisu ilaa Qaabiil iyo Haabiil buu soo socday oo markii ay dad walaalihii wax uu midkood maslaxa bidaya isku khilaafaan waxa ugu dhurdaran oo khasaarada ugu badan ay gaartaa midka xuduudaha kala tallaabo ama falka uu geysanayo ha kula tallaabo ama qolada uu u adeegsanayo inuu ku arguto maxaan ku raahdaa ha ugula tallaabee. arrintani marka waxay dhalin doontaa in ay sii fogaato maxaa la yidhaahdaa nabaddii inay sii fogaato, in odayaasha ay arrinta sacabka ugu dhacdo, in ay arrin dowladnimo ka tagtay oo beel aaday ay noqoto marka reer Jubbaland iyo sida ay u wada degan yihiin la eego. waxaa la gooyey khad cagaaran. waxaa jira nin oday ah oo lagu dilay Kismaayo xalay xitaa oo xalay iyadoo lala walwalsan yahay oo arrintaasi maxaa ka dhalan doona leeyahay ay tani xigtay. marka waxaan u ka imaan doonaa gudoomiye waxaan ognahay inay socdeen dadaallo ay igad dabada ka riixayso oo ku aadan in xal iyo isfahan la dhex dhigo lana soo afjaro khilaafka Kenya iyo Soomaaliya. dagaalka saaka ka dhacay Balad Xaawo ee Kenya xadkeeda laga soo qaaday maxaa uu ka bedeli karaa qorshihii iyo dadaaladii nabadeed ee socday? horta taariikhda igad ee gobolka Jubbaland ma fiicna. igad waxa weeye problemkan iyo sida uu u abuuran yahayba igad baa iska lahayd markii hore. haddana maba joogto arrintii, institutionna ma joogaan, hay-ada ma joogaan, waxaa jooga dad isku duulaya oo qaarkood uu cadow adeegsanayo oo qaar guryahoodii lagu laynayo wey arrinta hadda joogta. arrin marka ay igad la xaali karta maahe arrin in hoos loo daadajiyo oo dadka Soomaaliyeed ee meesha walaalaha ee wadayaal ee haybaha badan lihi inta ay ka wada hadlaan oo waran dhig la sameeyo in dib u heshiisiin loo noqdo way. igad iyo waraaqaheeda iyo protocol iyo madaxweyne la hadla iyo ma joogto hadda arrinta. laakiin halkaas iyo dadaalkaas socday ee dowladuna qayb ka ahayd waxaa ka mid tahay dadka gobolka iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed qayb ka tahay. maxaad kula muuqataa dadaalaa socday dowlado ayaa ballan lahaayoo ku ballansanaa madallo kale in looga hadlo qadiyadda khilaafka waxa uu salka ku hayo? maxaa iska bedeli karaa dadaaladaas? waxaan u malaynayaa dee dowladdii markii hore waxay ahayd Kenya oo inkirtay inay meesha ciidan ku tababarayso, la ogaana inay ku tababarayso. Djibouti oo loo soo diray inay soo egto. Djibouti uma baahnayn xataa inay soo safartay meesheeday ku ogaan lahayd, maxaa yeelay siyaasiyiinta Djibouti waa siyaasiyiin Soomaali ah. arrintan arrin Soomaaliyeed wey. Mandheere, Balad Xaawo, Doolow, meeshan Mandheere triangle dad Soomaaliyeed baa daris ku ah. reer Djiboutina dad Soomaaliya wey intooda badan. marka Djibouti meesheeday bay ku ogaan kartay meesha inuu joogo nin xabsiga Soomaaliyeed ka fakaday oo ay Kenya ugu coldhurayso hadduu Ilaahay idmahayo dhulkeeda dhexdeeda oo maleeshiyooyin loo dhoofinayo oo hubkii aanu arkaynay maanta la siiyey oo loo qaybiyey cusbaa meel aan Kenya ahayn aan laga heli karin mandaqadan. marka looma baahnayn anigu meesha ay Djibouti meesha wax gaarsiisay ma ogi, laakiin arrintan arrin cad bay ahayd. hadda maxaa ka dhalan kara haddii ay tahay su-aasha waxa weeye haddii labadii dal oo mid uu ashtakoonaya ee uu lahaa waa maleeshiya laygu soo abaabulay oo waa laysoo weerarayaa baa kii sidaa lahaa tii uu ka cabanaya ay ku dhacday waddankii kalena soo weeraray. dad badan baa ku dhintay, magaaladii waa laga barakacay, kuwa badan baa ku dhaawacmay, noloshii oo dhan baa kharibantay. marka de waxa weeye waxa ay Soomaaliya ka cabanaysay baa dhacday. Soomaaliyana markaa jawaabta iyada un bay la jiraysaa dowladda. anigu maaragtay sida yeeli doonaan garan maayo. waa mahadsantahay gudoomiye kugu soo laaban doona. waxaan rabaa inaan dib ugu laabto xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo xubnaha golaha shacabka ka mid ah. xildhibaane golihii shacabka tihiin arrintan maxaa in kala gudboon idinka? arrintan waxaa kaliya noo inaan dhahno dagaalka magaalada nabadda soo dawaalo intina allaha sabri imaan naga
dowladda federaal arrintaas ka dambeeya cad ka qaadaa ma aha in shacabka iyo wiilasha lasoo aan maskaxdeena ku biisi garay arrintan arrin dambiiliyaal ayaa jira oo dembi ay qalanaya arrintan shaqada ku leh sida madoobe ninkii sida ka hadlo inuu meesha soo qaado intaba dambiiliyaal waayo dembigaas loo yartaa interpol muxuu ahay dadkaas sidii lagu qabo hay-adda xuquuqul insaanka laga in nidaam dawli dambiilayaasha sidii loo soo qaban la galaa hay-addii sharci dejinta dalka dabcan sida wararku ay tilmaamayaanna dad soomaaliyeed oo siday doonaanba ha uga qancaan ayaa ku qancay inay qayb ka noqdaan dhibaatada dalkooda lagu hayo idinkoo awooddiina dastuurku idin siinaya ka faa'iidaysanaya ma isku daydeen in dadkaas tallaab laga qaado hay-adaha dowladda oo xil saaran aad kula xisaabtantaan in dadkaasi ay cadaaladda hor tagaan anigu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya horyaan ugu baaqay in markii uu axmedow haddaanan meeshan ka fogaan tiyaana maanta taagan nin ganacsata waxa ka dhacay leegahay dad shacab dadkaas qarantii tilaabo cad laga qaado in loo maraa sharciga ah in loo firi hay-adda isaga dowladda aqoonsiyaan qaaladeena sharci hay-adahan la xiriir leenahay interpolan ka wiilasha soo celinayo hay-adda xuquuqul ka dacweyn karnaa dadka laayay hooyo iyo caruurteeda iska hurda afiic ku garaaca dadkaa loo dayn karo arrintan dembigaa ka dhalanayo dembiga waxaa la qabaa sharciga keliya in la fahmo shakhsiyaadka xildhibaanka uu magac dhabay in warbaahinta qaranku aysan la qabin waa aragtidiisa waa maasantaha xildhibaan dib ayaan kugu soo laaban doonaa goordhowna sidoo kale waxaan fursad siin doonaa dadka soomaaliyeed ee hawada nagala socda si ay iyaguna ay markaasi aragtiyadooda iyo ay uga dhiibtaan barnaamijka waxaan dib ugu soo laabanayaa guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo arrintan guddoomiye dagaalka ka dhacay beled xaawo wuxuu ku soo aaday waqti Soomaaliya ay ku jirto xilligii kala guurka la yiraahdo oo doorasho ay soo wajahan tahay maxaa ku soo beegay kula tahay xilligan dagaalka beled xaawo horta waxay u eg tahay in dagaalkani uu doorashada lafteeda ku aadan yahay oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo wax kasta oo faham ah oo doorashada laga gaari lahaa dilkii aan hore u sheegay ee ninka odayga ah laftiisa inuu doorashada la xiriiro baa dadku qaar sheegayaan inkasta oo ra'yiyo kalena ay bandhigayaan maamulka meesha jooga marka waxaa weeye waxay u eg tahay arrin loogu talagalay in aan fursad loo siinin dadka Soomaaliyeed inay doorashada ka heshiiyaan Kenyana ma aysan qarsanba aqoon-yahanadeeda maxaa la yiraahdaa siyaasiyiinteeda waaweyn dadka tinkariska la yiraahdo mufakiriinteeda ah midna maanay qarsan inay doonayaan inay doorashada Soomaaliya qashqashaadaan oo ay kala soo baxaan natiijo iyagu ay doonayaan marka waxa ku soo aadiyay waqtiga doorashada oo xilligan xasaasiga aniga waxaan u arkaa inay doorashada lafteeda tahay dhibaatada gobolkan ka taagan gaar ahaan dhanka xuduudda muddaba waa soo taagneed sida mar dhaweytana ka dhawaajisay waxaa qayb ka ah dhibaato u gaar aheyd ganacsiga iyo dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed halkaas degan oo shirkadda Hormuud ay qayb ka tahay bal maantay wararka aad ka heshay maxaa khasaaraha oo gaaray ganacsiga shirkadda waxa muuqatay khasaaraha waa la yareeyay oo waa loo babac dhigay nimanka soo duulay laakiin khadkii Kenya ee ahaa in dhaqaalaha Soomaaliyeed lala diriro oo ay shirkadaha dagaalkii sokeeye dadka ka saaray oo saameynta badan yeeshay oo dad Soomaaliyeed oo badan ay ku tiirsan yihiin oo ama ay isku maqlaan ama ay xoolaha isugu diraan dahabshiil xataa inay baagsadeen waa la ii sheegay Hormuudna dee awal bayba u calaamadaysneed
marka waxaa muuqata haddii maxay tahay dhibaatadan soo laalaabatay oo hormuud maxaa ka dambeeya in hormuud ay bartilmaameed haddii aad doonaysid dad inaad colaadisid waa la xayrteeyaa. hormuud lacagtiina waa ku jirtaa, isgaarsiintiina waa tahay, shaqana waa abuurtaa, hanti qaran weeye. dadba gaar ha u lahaadeen hadday rabaan, laakiin hanti qaran weeye. waxaa kale oo ay dadku qaar sheegayaan in ay shirkado kale oo Kenya ku salaysani doonayaan inay ku soo fidaan xuduudkan oo dhulkan ay maxaanku idhaahdaa iyagu adeega ay hormuud dhulkeeda ka haysa inay iyagu hormuud dhulkeeda ka qabtaan inay doonayaanna waa la sheegaa. taa iyo macadda, laakiin waxa muuqata in naf iyo maalba lasoo weeraray. mar haddii dhowrkii soo fakatay magaalada kusoo dhex fakatay ay hormuud isku shubeen oo la ii sheegay inay xataa qoryo ku rakibteen oo ka tuurayeen iyagoo doonaya in damageka ayaga loo geysanayno oo hormuud gaaro, midka ay geysanayaanna uu hormuud gaaro. waxaan iska fahmi kara wey danta laga leeyahay. marka waxa weeye waa weerar isla socda oo magac dilkii leh, oo dad dilkii leh, oo dhaqaale dilkii leh, oo sumcad dilkii leh, oo isku dirkii leh wey, oo uu dal wado oo aan qarsanayn, oo arrintu ay tahay oray arrinta badda ka har, haddaynan ka harin tii idinku dhacdo waa yaabaysaan. nooma qariyaan dadka aan isnaqaan oo madaxda oo Kenya, nooma qariyaan aqoon-yahaninta aan sheekaysano oo Kenya warbaahinta markasta ku qoraan. waxa weeye waxay ka hadlayaan haddaynan edab yeelan tii idinku dhacdo waa arkaysaa. marka ayaan darro waxaa ah wixii ay nagu edbinayeen inay gacmaheena yihiin baa ayaan darro ah. wayse muuqataa wax hadda la fahmi waayi kara ma ahan sababta ay Kenya u yeelayso sida ay yeelayso, oo ay u yeelayso waqtigan isla shalay unbay ahayd markii nin jaamacadaha ugu waaweyn wax ka dhiga gabadha wasiirka gaashaandhigga hadda ah awalna wasiirka arrimaha dibadda ahaydna ay u dhaxday oo la yidhaha Professor Peter Kagwanja uu lahaa Soomaaliya doorashadeeda si kasta oon ku faragelin karno oo aan uga soo saari karno natiijo aan doonayno waa inaan uga soo saarnaa. golaha ammaanka waa inaan u fariisanaa. AMISOM nagama eryi karaan maxaa yeelay golaha ammaankaan joognaa. waxa weeye dalkan Kenya warkiisu waa cad yahay, inaguusan keenna caddayn. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidoo kale waxaa muuqdaa in uu jiro kala aragti duwanaansho dadka gobolka ku noola. qaarkood baad arkaysaa haddaba in ay garab siinayaan oo ku qanceen inay qayb ka noqdaan dhibaatadaas dhaqaalaha iyo ciidamada iyo guud ahaan dowladnimada loo geysanayo. ma la waaye xal dadka gobolku isku hor fariistaan oo ayahooda uga tashtaan dalkooda iyo dadkoodana ay ku difaacdaan? waxaa ka mid tahay siyaasiyiintii gobolka markaan sidaa ku leeyahay. horta kala aragti duwanaanshuhu waa joogto, waa wax bini aadanka la dhashay sida aan mar hore sheegay, oo labadii nebi aadan uu dhalay baa isku qaadqaaday oo mid looga hufay. markii contextigan laga eego gobolka Gado iyo Jubbaland guud ahaan markii laga eego, aniga dowladda waan uga aragti duwanahay arrinta Jubbaland. dowladdan idaacadan iskale waan uga aragti duwanahay, laakiin aragti duwanaanshahaada meesha ay ku gaarsiinaysaa la raba. waxay ku gaarsiinaysaa inaad idaacadaha wax ka sheegtid, waxay ku gaarsiinaysaa inaad meelo maxaan ku rahaa gaar amartid, waxay ku gaarsiinaysaa inaad odayaal u dacwootid, waxay ku gaarsiinaysaa inaad sugtid oo xilligii la isdhagaysta la gaaro, base waxay ku gaarsiinaysaa intaad caruur aruursatid oo dal kale u geysid oo qoryo ku soo taxdid inaad dabka ku soo shubtid oo hooyada iyo ayadaa qaxisid. yacni xadka ay ku gaarsiinayso aragti duwanaanshaha unbaa laga hadlaya. aragti duwanaansho joogto weeye, cid isku aragti ihi maxaa la yidhaahdaa maanta way yar tahay, laakiin shuruuc iyo curfi iyo xishood baa lagu wada socdaa. xalka gobolka Gado wuxuu ku jiraa dadkeeduna inay isla hadlaan iyadoo qofna uusan qof khasbayn, qori uusan madaxa kala saarayn, midna uusan dal kale hub iyo ciidan ka keensanayn, midna uusan maxaan ku rahaa waxaysan dadka astaahilin isla astaahilin. waxaana jeclahay inaan kuu sheego Jubbaland oo dhan muranka ka jira, dad badan oo Soomaaliyeed baa degan, weligood kamay wada hadlin sidii loo dhisi lahaa. markii aan inagu maamulka ku biiray dib u heshiisiin yar baa ka horreysay, laakiin waxaan ku hiraynay inay doorasho dhacdo. doorashadii siday u dhacday baad ogeyd oo cid waliba ay diiday. markii laga reebo dowladda Kenya, cid waliba ay diiday. dowladda Kenya iyo ninkii kaabahiga ahaa oo ay dooratay maahee cid waliba ay diiday. waxay ku soo dhammaatay sidaan. haatan aan kala badbaadno unbay maraysaa. dadku yaysan islayn, walaalaanu nahay wadayaal. dad badan oo Soomaaliyeed baa meesha degan oo magacyo badan leh, kuwa hadda aadka loo sheego mararka qaar ka magacyo badan, degaan fiican oo weynna ku leh. marka inta dadkii la isu keenay in la yidhaahdo war maxaa idinka dhexeeya, waxaa la yidhi geel diday waxaro lagama dhex qabto. dowladi ka dhex dhisi maysa dhiigga buulaha uu ku daadanayo iyo maleeshiyada looga soo daabulayo gobollada kale iyo hubka Kenya iyo lacagta Kenya iyo influencer Kenya oo la keenayo. inaga walaalaana inaga isu dhan dadku inay wada hadlaan oo la isu dhimriyo oo horta markaanu nabad ku wada degno
maamul iyo dowlad dhisid laga hadlo weeye. waa mahadsantahay. waxaan rabaa xildhibaan daahir amiin inaan dib ugu laabto. xildhibaane, mar haddii magaalo dalka ka mid ah ay ku soo duuleen ciidamo ka yimaaday xadka dal kale, dhibaato ay geysteen, dad ay ku dhinteen shacab Soomaaliyeed ah, maxaa la gudboon dowladda ka mid tahay ee Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedba? waa mahadsantahay. shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon shacabka Soomaaliyeed waxaa horta marka ugu horeysa dambiilayaasha iska qabtaan. inaan dib ugu noqdo muxuu ahay xirsi ujeedinahay aniga iyo xirsi waxaan kala dhisantay oo adduunka la aqoonsan yahay oo Soomaaliya ay aqoonsan tahay oo jirto. baarlamaankii 9aad ayaa sila hortaag ku sameeyay sida qaabkii wax Israa'iil waa qalab, laakiin 2 sano oo ma ahan Jubbaland ma la aqoonsan yahay iyo ma la aqoonsanaado iga raaliya. maxaa ummadda Soomaaliyeed iyo dowladaba la gudboon arrinta dagaalkan? madaxweyne Farmaajo ayaa laakiin dadka reer joogteen oo meeshaas yeelama jiraan, laakiin dagaal soo galay, dagaal lagu qabsaday, qaab oo muxuu ahay munaasab ahayn ay dad qaar waxaasoo dhan kasoo tag hadda Jubba dhis isagana waa jirayaa oo xirsi waa jirayaa. anigana waan dhahay waxaa la rabaa in shacabkaas aniga hadalka Jubba uu soo daistaan in horta marka hore nabad la helo kadib dadkii maslaxadiisa soo noqoto, dadka gogol nabad loo dhigo. yinka 3 gobol Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, dadkii nabad isugu yimaadeen ka qaybsadaan wixii dembi oo dhacay, dadka laay dowliga loo maro. intaasay u baahan yihiin xal. xildhibaan daahir amiin, dib ayaan ugu laaban doonaa. waxaan fursad siin doonaa daawadayaasha qadadka taleefanada ku jira haddii ay ka soo qayb galaan barnaamijka. waayahay, waxaan dib ugu soo laabanayaa guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo oo igala qaybgelaya barnaamijka. dhibaatooyin badanaa ka dhacay gobolkan oo arrintan ku saabsan. adiga waxaad ka mid tahay dadkii kasoo shaqeeyey oo mas-uuliyiintii gobolka ka mid ahaa, wasiiradii dowlad goboleedka Jubbalandna kasoo qayb noqday. maxay kula muuqataa in lagu soo afmeeri karo qorshaha Kenya ee ku aadan in gobolkaas ay dhibaatadu kasii socoto? horta waxa weeye dadka Soomaaliyeed Jubbaland horta la dhig ma aha Kenya. Kenya waxaa la dhig ah Soomaaliya. dadka reer Kenyana waxaa la dhig ah dadka Soomaalida ah. marka mana jiro dal Jubbaland la yiraahdo oo ku dhex yaala Kenya iyo Soomaaliya. xalka Jubbaland markii uu dal aan Soomaaliya ahayn gacanta kula jiro wuxuu u yaalaa dadka Soomaaliyeed oo ay xitaa Jabuutidaas ku jirto iyo kuwa Soomaalida oo dalalka kala degan ugu u yaalaa. xalka ugu fiicanna waxaa weeye horta in runteeda la ogaado oo aysan siyaasiyiintu iska camiranin, oo aysan haweeney uu ajnabi guri ku dumiyey oo hoobiye ku dhuftay mas-uuliyiin Soomaaliyeed inta ay ku biiro waaqleeyaan oo shirar jaraa'id qabtaan aysan ugu raakubin iyagoo raba inay haweeneyda xukumaan. xalku wuxuu ku jira horta runta Jubbaland in la qalo oo inta la ogaado la yiraahdo horta meeshan problemka ka jira muxuu yahay, dadka meesha degani ma heshiis baa, maamulkani ma isku raaceen, haddaysan isku raacin cid ku khasbi kartaa ma jirta tawcan oo kara. adduunka waxa weeye maamulka inay dadku ogol yihiin iyo inuu khasbi karo wax ka dhaxeeya ma jiraan. ma khasbi karaa maya weeye, ma isku raaceenna maya weeye. in xal la raadiyo weeye. marka in aan loo ogolayn inuu xukun qabto ma jiro oo reer Jubbaland ama Soomaaliya ah, dad aan la xukumi karinna ma jiraan. marka huuhaa badan oo carrada waxaa wareeganaysa aan run ahayn oo loogu talagalay in dadka lagu jahwareeriyo. Jubbaland 3 gobol weeye, gobol niman baa naga haysta, waxay ku haystaan si dayacaadeenna ah ee xoogooda kuma haystaan.
midka kale oon haysano buuq waxaa ka jira aan joogsan, kan kale degmooyinka laga hayo dilkii baa socda oo aan cidina u aabiyeelayn. marka waxa weeye maanta hadduu ku haysto berri, maanta haddaanu ku haysan berri buu ku qabsanayaa. cadaalad darradii aad wax ka maleegtidna lugahaaga ayay kusoo dhammaan doontaa. wax loog yahay weye walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahlih. dhagar ninkii maleego unbay aabba dhahaysaa oo hooyo u noqonaya. marka xalka dhabta ah waxaa weeye iyadoo dastuurka Soomaaliyeed la ixtiraamayo, iyadoo dadka Soomaaliyeed iyo sharafkooda iyo magacooda iyo deegaankooda la isticmaalayo, iyadoo qoyskii ay laba nin ka joogto lagu tixgelinayo. ilaa inagu way sognahay waxa weeye sida loo kala degan yahay carrada waa la yaqaan. in inta la isu imaado masaalix la sameeyo, dadku dib u heshiisiin samaystaan, odayaashooda ay isu imaadaan, war sidee isu maamulaa la yidhaahdo xal ka horeeya ma jiro. haddii maanta oo dhan gidaarka madaxa lala dhacayo, hadday 10 madaxweyne hore shir jaraa'id qabanayso, hadday 20 Twitter niman dhalinyaro oo magac lahaan lahaa sidooda kale wax ku qorayaan, runta Jubbaland taala waxa weeye meesha BB1 la yiraahdo ee xuduudka baa la isku hayaa oo Kenya doonaysa inay soo durjiso si xuduudka oo dhan uu goolad u galo. dadka Soomaaliyeed ee baladxa degan iyagoo Soomaalinimo ku diriraya ay xuduudkooda ilaashanayaan. inagoo wasiir ah oo Jubbaland ay dhisan tahay bay sida ahayd, haddana way ahaanaysaa. madaxweyne xasan sheekh baa dadka lahaa celiya xuduudka ayaan la soo marin. madaxweynahanuna waa leeyahay ciidan Soomaaliyeed baa la geeyay. kuwa jooga ciidanka Mandheera County ma aha, waxa jooga ciidankii Kenya Defence Force. dad Soomaali oo siyaasiyiin ah waxay la taagan yihiin maxaa loo geeyay Somali National Army xuduudka. oo waxa jooga waa Kenya Defence Force way ma joogaan maxaan ku rahaa bilayskii Mandheera iyo ma joogaan. waxa weeye arrinta halka in laga abaaro oo qof waliba oo Soomaali ah oo doonaya inuu arrinta ra'yi ka sheego, horta uu xog ogaalo ayaa xal ah. arrin aadan xog u hayn oo dhiigeedu daadanayo oo dad Soomaali ah lagu dulmayo oo kuwa kale lagu barakicinayo, inaad inta isla soo taagtid maalin waliba negatiin u soo xiritid adigoo siyaasad yar oo raqiis ah ka shaqeynaya, aad haweenka barooranaya oo la agoomeeyay xaruurtooda oo iyaga la laayay, inaad ku duldoobidid macna samayn mayso. Soomaalida inay xog ogaasho, dadka Jubbaland ay tashadaan. halka way halka way xarabna dhan kale aan ka eegno ciidamada maanta dagaalka ka qayb galay si guud ciidamada Soomaaliya si rasmi ah looma dhisin, awoodii ay lahaayeen waagi dawladdu duntana ma lahan. fariin caynka ay diray in duulaan intaas la qorsheynayay oo intaasoo bilood socday oo warbaahinta dhan ka hadlaysay in ay sidaas isaga difaaceen, ayada laftirkeedu fariin caynka ay diray. horta Soomaali weeye waxaa la yiri libax gabaway waxara kuma ciyaaraan. way isnaqaan, daris baa lagu yahay dhulka, dadku way yaqaan, dalalkuna way yaqaanaan, dad yooguna way yaqaanaan. ciidanka Soomaaliyeed geesinimada uu muujiyay waa mid 100 sano jirta. dhulka aad aragtay dadka Soomaaliyeed oo tiradaad aragtay leh may haysteen oo annaguna kuma soo gaareen, awooyadanada uma imaadeen hadii la iska riixi karo. reer Yurub baa ka samray, Portugiis baa ka samray, xabashidii awoodda lahayd baa ka samirtay oo weligeed aan la gumaysan. kuwaanaba aan qayrsan jirinba oo cid waliba waa ogtahay. marka waxa weeye fariin weyn oo diraysa ma jirto. fariinta ay diraysa waxa weeye dadka Soomaaliyeed baahida uu qabo inuu ciidankiisa dhisto kaliya diraysa oo si uu mar kale macna u yeesho inuu ciidankiisa dhisto oo kumintido oo la siiyo awlawiyaadka koowaad inaan ciidan macna leh samaysan. taa waa inay garab socotaa dib u heshiisiin iyo wadajir dhexdeena iyo inuu sharcigu ina kala hawo si aanay ciduna ciidanka la dhisayo uga baxay. intaan u gudbin xildhibaan Daare Amiin oo barnaamijka soo xirin ugu dambeyn adigu maxaa dhihi? anigu waxaan mar kale u taxsiinayaa dadkaas aan anigu ku dhashay oo u soo arimayay oo labada dhinacba ka jira diilintaas oo Soomaaliyeed oo maalin walba la iska leynayo dhibaatada loo geysanayo in aysan dirsan oo aysan xil saarin oo leynayo. waan u taxsiinayaa iyagana waxaan leeyahay inta ay runtu idin jirto oo xalku idin jira, markii aad runta gaartaan baad xalka gaaraysaan. isu dulqaata. dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa hay'adaha samafalka iyo dadka Soomaaliyeed ee wax haysta inay u ballaqaan inay dhulkaas tagaan, u dalbaan, macaawinaad u raadiyaan. dadkaas iyagoo coronavirus u hayay oo dhibaato haysatay oo qashqashaadi ka jirtay baa saakana hubiyayaal lala dhacay. dadka maanta Soomaaliyeed ee balad xaawo joogo waxay u baahan yihiin gurmadka dadka Soomaaliyeed oo dhan, attentionka dawladda Soomaaliyeed oo dhan iyo inagoo dhan ducadeena ay u baahan yihiin. intaasaan oran lahaa. وهاجاك ما سنتهي قدومي هراء قبل كجدو أيو كاسي هان آذن أو حرسي أيو أها أنت سينجعل هاي ناقص أف ميروج
guud ahaanba barnaamijkii ay markaasi aanu kaga hadlaynay xaaladda magaalada beled xaawe iyo dagaalka ku dhex maray ciidamada qaranka iyo maleeshiyaadka dowladda Kenya ay ka soo dirtay xadkeeda sida mas'uuliyiinta qaranku ama mas'uuliyiinta dowladdu ay sheegeen dagaalkaasi ka qayb galay. barnaamijka waan uga mahad celinayaa dhammaan martida igala qayb gashay oo uu ugu horeeyo gudoomiyihii hore ee gobolka mudane aadan iyo wariyaheena gobolkaasi Cayduruus oo na siiyey warbixintii ugu dambeysay. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xildhibaan daahir amiin jeeso oo isna barnaamijka ka qayb galay. xildhibaanka waxaan jeclahay ugu dambeyn inaan siiyo kelmadiisa u dambeysa ee uu ku soo qatimayo barnaamijka. xildhibaan soo dhow. waa mahadsan tahay. waxaan rabaa in dowladda federaalka haasata xukuumadda aan la hadlo aan idhaahdo dadka reer beled xaawe ha la caawiyo, nidaam dawli ah lagu caawiyo shacabkaas dhibaataa gaadhay arrinta dagaalkaasna yaan dagaalka xalin dhinaca isagana ha loo maro. muxuu ahay dadka ka dambeeyay shuruucda caalamiga loo muxuu ahay waa in anigu dowladda federaalka haddii ah mid ka duwan muxuu ahay dadkaas iyada dadka dhibaataysana ay caawisaa kadib ay sharciga hor keentaa waa in sharciga la hor keena caalamiga la adeegsadaa annagoo dhan maleeshiya haddii la adeegsanin noqonayna. marka madaxweynaha iyo wasiirada arrintaas ku sheego. xildhibaan aad u mahadsan tahay. intaas ayuu nooga dhan yahay barnaamijkii tan iyo kulantideena dambe. ammaane Allah.